Ismaaciil Cumar Geelle annaga dhibka Soomaali uu ku hayo waxaa ka weyn dhibka uu dadka reer Jabuuti ku hayo. marka laga hadlayo Ismaaciil Cumar Geelle iyo dhibaatada uu u geystay Jabuuti iyo Soomaaliya inaan si toos loo qeexin oo tafaftiran haddii aan isku dayo marka waxaan rabaa inaan isla fahanno in Ismaaciil anagoo burbursan laakiin daba qabasho leh oo ummadeena daba qabasho leeyahay oo wadanku daba qabasho leeyahay inaan walaaltinimo bilnay heel bidnay cirsi walaaltinimo bidnay balse aanan tii ka faa'iidin oo runtii dhibaatadii ina burburisay dhibaatadii aanu ka cararaynay oo ahayd ma garanaysaa sidaan u kala qaybsanayn iyo qabaa'ilka aan isku dilay iyo wixii aan ka midoobay aan isku dayaynay inaan ka midoowno ilaa xornimada markaan qaadanay inuu qoorta noo suray Soomaali fanaan iyo sheekh iyo siyaasi intay isugu timid Jabuuti u dhibaatadii qoorta noo suray tiina ay noqotay wax generation na saameeya wax siyaasiyan noo galay annagina sii kala kaxeeyay inaan sii kala goono sii kala fogaano oo calamo kala qaadano sababay dhibaato maantay na gaarsiisay in ma garanaysaa baarlamaanka federaalka speakerka ah markuu tagayo gobol Soomaaliya inuu maamul goboleed weydiisto ma soo geli karaa sidii inuu wadan shisheeyaa galay dhibaato maantay sababtay dhalinyaradeeni iyo generationkeeni intay saameysay oo qabiilkii galay inay calankii inay reerku isku amaanayaan isku soo sawirayaan publicly waa dhibaato Ismaaciil qorto uu noo suray oo shalayto markaan ciirsiga bidnay wixii aan isku soo dilnay si aysan wax baxa u noqonba uu qorto noo sii suray taas arintaas oo naga soo raacday carta ma aan arin siyaasiga Soomaalida loo sababayn karo oo kaliya waxay ahayd also dad baabaasan oo walaal dawlad ah markaas heel biday heelkiina tii na baabiisay qorto noogu suray oo ma ahan mid siyaasiga Soomaalida ka imaanaysa taa ka sakow Ismaaciil wuxuu nagu ilaaliyay in uu systemkii bixin in aan ummadu ka dhamaanin 4.5 iyo qabaa'il inaan ku dhisnaano in ma garanaysaa wixii aynu ku hoos noolaano oo sidaas u kala qaybsanaano tusaale cad waxa ah intii hadda xukuumadaha soo jireen hal mar baa ummadda Soomaaliyeed hedidiila arkeen isku imaatin iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo in loo laabto halkii marna banaankaas naga istaagay waxaan bidnay door inuu iyagu dhibaatana loo geystay iyo jamaadana lagu abuuray oo dad Soomaaliya ku baaba'aan in ay baarayaal ka noqdaan oo iyagu ogaadaan ayadina wana looga heeliyay waxa la yiri Soomaaliya waa qaldan tahay Kenya saxsan wax cad oo saqiirka ogaan karo jamaad xuduud ku sugan Kenya ka soo dagaalamayso oo dadka dagaalamayo la yaqaano askartii loo jeedo dadka la isticmaalayo oo jawaasiista loo jeedo marka ma ahan Ismaaciil wax maalin kaliya uu nagu sameeyay waa wax intaas 1999 buu office-ka yimid ilaa iyo KCBC uu dhibaatadaas uu nagu hayay waxa kaloo jirta ummadda reer Jabuuti ayadana markaan u soo laabto ayadana meeshu dhigay waan aragnaa ummadii ilaa hadda hay'ado malaha wadanku hay'adahu ka dhisma hay'adaha wadanku haday shaqadooda qabsan karaan oo budgetkoodu leeyihiin hay'ado ayada koraysa ayada kacaysa dad badan baa waxa laga yaabaa inay maarta la dhacsan yihiin iskuulo yar iyo wax la dhisay laakiin dadka Soomaalida ayaga iyo ma garanaysaa Soomaaliya dhihina ummadu hadii xogaa amni ay hesho ayaga wax dhista ayaga horumar isgaarsiiya tusaale cad waxa isri meel la taabta ma ahayn haddana waa vibrant market in waxa waaye entire Kenya oo waxa la oran karaa East Africa ummadu ayaga ma garanaysaa isxilqaan wadooyinka ku hagaagsanayay oo qashinka isaga tuurayay oo nabadooda ka shaqeynayay oo wax kasta sameeysanayay marka
dhowr iyo 20 sano in maanta iskuulo iyo waxba la dhisay lagu soo gaabiyo wadankiina meesha aragtay taagan yahay daroogo inta lagu harqiyay maaragtay oo lagu seexinayo si aysan u kaakicin oo yiri xagee ku soconaa aysan u dhihin ma runtii wax la amaani karo intaas Djibouti meesha dhigo ku filan siyaasigii baa maanta banaanka wareegahaya maanta xisbiyiin midaysan oo dhaliilaha jira ka hadli karaan jirin dhowr iyo 20 sano ka bacdi oo ma garanaysaa si sax ah dhaliilaha miiska u soo saari kara oo si xornimo u hadli kara marka midna yaan la isku qaldan walaalihii horaan ku raacayaayo anagu waxaan haysanaa waa Ismaaciil ummadda Soomaaliyeed wixii dhibaato ku haya iyo ma garanaysaa marna ma ahan waxaan taageeri karno Djibouti waa walaalahan reer Djibouti waa walaalahan waana ahaan doonaan laakiin casharkan ka baranaynaa wuxuu yahay walaalka markuu yimaado mid aan ummadda danteeda ka shaqeynay walaaltinimada ixtiraameyn mid aan xor ahayn inuu ma garanaysaa walaaltinimada meesha ka baxayso Djibouti yaa la taraya waa laba wadan oo aan oran karno dhalasho ahaan marka noqoto reer Djibouti baa wada dhalan saasoo ay tahay Djiboutina meeshana dhigaysa waa aragnaa Eritrea maanta waxay ka qayb qaadanaysaa dib u dhiska ummadda Soomaaliyeed qayb maartay u istaagtay si iskeeda oo awood leh marka casharkan ka baranay taas weeyaan aaminsanahay dad badan waxa aaminsan hadii qoladaas la gooyo walaalahan ahaan doonaan maya waxa walaalahan kaliya walaalka waxa noqon kara oo ummadda markaas garab istaagi kara meel kasta ay joogto walaalka xorta ah ma garanaysan tusaale kale hadaa inay soo qaato Faarax Macalin iyo Ducaale isku si Soomaalida uma garab istaagaan walaalka xorta ah markasta xornimadiisu ku garab istaagaya walaaltinimadu waa aqoonsiga laakiin walaal dantiisa ka shaqeysanaya shisheeyo oo shaqeynaya cid uu wax ugu yaala malahan intaasaan ku soo gabagabeynay horta Ismaaciil Cumar Geelle annaga dhibka Soomaali uu ku hayo waxa ka weyn dhibka uu dadka reer Djibouti ku hayo Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu maleynayaa 1999kii buu xilka qabtay 20 iyo dhowr sano buu xilka hayaa intuu qabanin xaqiiqta si dadban buu u maamuli jiray markii hore sidoo ka sii horeysay taasoo ka dhigaysa in ka badan inta madaxweynaha ayaa inuu xafiiska joogo Ismaaciil Cumar Geelle waxa weeye warkii dawladda Soomaaliya burburtay meeshii dawlad Soomaaliya soo dhisay dhibaatada haddana haysataa tahay asaga horboodahayay ilaa laga soo bilaabo maalintii dawlad ku meel gaar Soomaaliya soo dhisatay waxaa dalka Soomaaliya soo maray in ka doorasho waxay gashay 6 ama 7 Cabdiqaasim Salaad Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif Sheekh Axmed inta madaxweynaha xilka ku guuleystay Sooma marayo Xasan oo 2 jeer ah 5 maxaa Cabdullaahi Farmaajo 6 madaxweynaha Soomaaliya soo martay intaas halkaas uu taagay asaga kaliya ma ahan wadamo badan oo Afrikaan ah noocaas la mid ah marka ma khalad baa masoo sax idinku hadda isu barbar dhiga marka waxay ku tusinaysaa wadankuna dhaxaltooyo wadan ma galo meel guriga hooyada aad ka dhaxashay aabaha ma aha waa wadan dadka la dhaxayo dad kula leeyihiin marka siyaasad waxa jirta lagala shaqeeyo oo uu dadka ku curyaamiyo xataa midda gobolka iyo deriska wadamada deriska ah uu ku curyaamiyo oo dhaqaale iyo awood sheeyaba ah baa jirta tusaale ahaan oo kale Ismaaciil Cumar Geelle dalka wuxuu ku hayaa wax allaala wax dawladda iyo dalkaas ka shaqeeya wuxuu hoos keenay gurigiisa waxa weeye awood oo dhan wuxuu ku soo aruuriyo qoyskiisa hal qof
oo afkaar ka duwan leh mana ka shaqayn karo mana ku noolaan kara dadka marka waxay ku khasban yihiin dadkii inay iska dhageystaan siyaasad kalena wuu isticmaalaa oo hadda dalalka hadda nimankan Faransiiska oo kale oo wadanka iska degan oo lacag laga qaato wadanka ayaga waardiyeeya ayaga waxa way mucaaradada iyo wax allaale wixii dawladda kaga imaanaya iyagana lacag bay ku qaataan ciidamadoodu waxa way vacation ay u baxaan way soo laabtaan fisqiga iyo qurunka iyo tumashada iyo khamriga iyo waxa ay keenaan waxa way waa la yaabaysaa dadka reer Djibouti iyo annaga aan soo noqono Soomaali annaga dadka reer Djibouti waxba nooma dhimin nama nabca annaguna ma nabcin dibna nagama dhaxeeyo weynina jecel yahay annaguna waa jecelnaha laakiin dhibaatada haysta ayagana haysata dhibaatada annagana haysata burbur baan galnay ayagu kaliya facility yar bay nooga fudud yihiin because dadka reer Djibouti ganacsigii waa lagala dagaalamay facility yar bay noogu dhaamaano oo waxa weeye oo qofkii ma taqaanaa naftiisa meel uu ku badbaadsado helaya laga yaabaa inuu caafimaad isu socod waxay aan maaragtay aan quwad lahayn dalka waxaa la rabaa in dalka intaa dhisnaa inuu hormaro oo wax un sameeyo hadda yar walaalkay ka dhawaajinayay baa arkayay aeroboorkiis aeroboorka haddaad Djibouti aragtid waxaa is leedahay qol oo reer degan yihiin miya haddaa aragtid yacni dawlad intaas jirtay oo intaas nabad haysatay oo adduunka hadda waa hormaray hal kontrakti baa lagu dhisaa aeroboor war aeroboor gobolada Soomaaliya markaad tagto aeroboorradooda ka ayaa ka weyn garoonka Djibouti markaad aragtid magaalada sidoo kale dadku say u rafaadsan yihiin waxyaalaha lagu sii daayo waxaa ka mid ah oo lagula dagaalamayo dadka khamriga iyo qaadka iyo waxaasa waxa looga dhigay waa loo fududeeyay oo waxa hadda qaabka Soomaaliya la rabo in loo sameeyo oo dadka maartay sida ay u wada seexdaan hurdo dheer u galaan marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo walaalaheen reer Djibouti waan jecelnahay waana huba inay idinkuna jeceshiin marka si aysan maaragtay ayagu u dareemin xataa ciwaankeena looga dhigo Ismaaciil Cumar Geelle si dadka inta badan maaragtay madaxweynaha oo la soo gaabiyay inaysan fahmin baa laga yaabaa Ismaaciil Cumar Geelle aan ka hadlaynaa wana tookana Djibouti shacabkeeda ma ka hadlayno was jecelnahay walaalaheen waaye dibka annagana wayna haysta laakiin annagu marna hadii dibna haysto inaanu dhaano lug baan laanahay si la ajligeed lug baan laanahay ma dhaqdhaqaaq karno inaan dhahno ma annagoo lugtaan ka dhaqdhaqaaqayno baan Djiboutina u oolaynayna nabadeeda inay helaan annaguna taanada waa raadsanaynaa waxaan kaloo samayn karnaa oo walaalaheen aan ka caawin karnaa waa u loobi gareyn karnaa waxaan ugu loobi garanaynaa inay burburaan maahan in dhibaato soo gaarto laakiin waxa ugu loobi garanaynaa in Djibouti ay noqoto Djibouti la wada leeyahay aysan ahaanin Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle leeyahay oo wuxuu rabana uu ka sameeyo wuxuu rabana aysan ka qabsoomeynin intaas baan anagu u baahanahay waana mahadsantii walaalahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Ismaaciil Cumar Geelle waa madaxweynihii Djibouti marka wuxuu maamulaa reer Djibouti buu maamulaa wuxuu ka shaqeynayaa intuu karayo bulshada Djibouti inuu wax u taro intuu Djibouti wadanku intuu dhiso taa horta waa tii ugu horeysay weeyaan talabaad waxa la yiraahdaa Faransiiska wax lagu yiraahdo revolution ee Soomaaliga malaha lagu yiraahdo kaxan ayaa dad baa wada ayaan u malayaa oo nacam qurbaha iska jooga dadka imika ninkan walaalkay Faarax wuxuu lahaa qoryaha qaata dadkan le qoryaha qaata anagu waan arkaynaa waxa horta dadkii qoryaha qaatay waxa ku dhacay maxaan ku rahaa burburkii ka gaaray maxaan ku rahaa Soomaaliya sida heed iyo sida maanta tahay waxa ugu wacan qoryihii la qaatay iyo maxaan ku rahaa problemadii meesha ka dhacay anagu laakiin reer Djibouti hadaan ahay ma rabno taa isbedel haduu dhaco isbedelku waa inuu ku dhacaa si nabad leh wadan yar baan nahay dad badan baa isla gala qabiilo badan baa isla gala marka qoryaha hadaa la qaato dagaal meesha laga dhamaado wadanka oo dhan ayaa baabi Soomaaliya way weyneed
intay weyneed ayay ku yar baxday laakiin Djibouti sidaa maaha anagoo xorriyad iyo ku nool nabad ayaa problema kala haysto maxaan ku rahaan aan ka bixilanahay marka dagaal haddaan isku darno malaha anigu waxaan u maleeyaa laakiin meel dheer inta gaadhiso xaajiga Che Guevara di Canada waan sheegay marka anigu waxaan oran lahaa abtiyo marka ugu horeysa mafiiqda waxa lala dhacaw uskiga aqalkiisa hortiisa yaala maanta anaku waxa tiri waan soo galab daba galanaa baa tiri oo inuu bilaaba anaku wax allo aan bilaabayna ma jirto Ismaaciil Margeele markuu xilka qaaday 99 saddex dugsi dhexe ayaa jiray dugsiga sare xabad kaliya taa jiray jaamacad ma jirin maanta isbedelka Djibouti gaadhay caalamka oo dhan ba arkaya isbedel wanaagsan inkastoo de wax badan in la qabto weeyaan laakiin Ismaaciil horta uu ka baxay shaqadii loo dhiibay reer Djibouti ay xilkii u dhiibeen xilka uu ka soo baxay baan u lahaa maadaama xagan waxaan ku jiraa banu malaadad nacam iska nacam Ismaaciil iska nacaan u malayaa laakiin ku sidaa ma banihiba ayaan leeyahay marka haddaad isbedel doonaysiin isbedelka waa in horta haddaad Soomaali tihiin Soomaali ka dhex bilaabo horta meeshu imika dhulku suu yahay waa iska arkaysiin waxa leedin Ismaaciil ma walaalba ama waraabe ha noqdoba waraabe inka maxaa naga soo galay marka wadankiin hadda inta ka shaqaysatiin doonaysiin aan hagaajisiin de inka weeyaan linka ugu horeeya dadka nacam mas'uul hadda la doon lahaa maanta Soomaali soo socoto mas'uulka ugu horeeya waa linka Soomaaliyeed weeyaan waa inta la doonaa ma aha ninkan baa ka mas'uula ninkan baa na burburiyay haddaas burburisay hadda Soomaali burburiyay dadkii xilka bargii hayay ayaa burburiyay oo sii burburinaya marka daciifnimadu inaka naga imanaysa horta Ismaaciil hadduu ka faa'iideysto taasi waa problemkiisa weeyaan laakiin daciifnimadu inaka naga hor imanaysa taabaan ku hadalkan ugu dheeranay assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نقول له horta anaga Djibouti waxa jira waa ka warhaynaa dadka badanaana meeshan ku jirana waa ka warhayaan horta Ismaaciil wuxuu qabtay iyo wuxuu taray dadkaas markii loo fiiriyo waxay mudnaayeen isuma dhawa midda labaad oo leedahay idinka daciifiin oo ku raacsan hada anaga daciifiin oo Ismaaciil wax ka sugnayba laakiin de anaga waxaan ka hadlaynaa inuu problem nagu hayo inuu nagu haynin baan ka hadlaynaa ma ahayn inna ma oranin Ismaaciil jaaniskiisa yuusu ka faa'iideysan Ismaaciil du jaanis ku helo whatever macnaheed meel kasta ay tahay inuu ka faa'iideysto asaga iyo dalkiisa iyo waa xaq buu leeyahay cid ku aadaanaysan ma jirto laakiin waxa weeye anagu dad walaalaha haddaan nahayna inaan isdibindaabiyana maayo waa inaan macnaha de xoogaa istaakulayna taas ma pointigan anaga intaas waaye laakiin adiga de ra'yiga hadduu naga duwan yahay problem ma jirto waa caadi weeye ra'yigaaga adaa iskale waxaan kusoo dhaweynaya walaashay walaal nadiifo ku soco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الله مقلع قارنا وعوضا يقرأ لهذا كوضع ولا تبع عن لغو مقلع كوضع عادي أدبا عرض إني السلام يا ما شاء الله تبارك الله برنامج في عن أولوبة هي وايه وعسوق مقابية إذنك برموتك كاواني مهد علنا يا نهارتا عادي بانسو دوينا يا إن ما أنت يرتا لدريمو إلا ده هديرا لما مركو أوكلا قاعدة يعني Djibouti reer Djiboutianka oo umada Djiboutianka ah iyo Ismaaciil Cumar Geele dawladda dadka Djiboutianka anigu dad badan baan ka aqaanaa saaxiibo badan baan ku leeyahay horta hal way ka midaysan yihiin waana ku raacsanahay waana mid hadda wiilka dhawaadinayay oo ah inay naga wadanisan yihiin oo iyagu intay shakhsi fiirin lahaayeen ay fiiriyaan waxa ka weyn oo ah qaranka maadaama haddaad shakhsi fiiriso wax badan oo qaranka muhiim u ah baad weynaysa wax badan oo ku dhisnaan lahaana way ka burburayaan horta taa way nooga fiican yihiin inay maaragtay waxa keenayana waa dad well educated waay inta aan arkay waa dad aad aqoon u leh gabdho iyo wiilal iyagoo kala fikrad duwan iyagoo qaybtooda aad arkayso dadkooda xirxiran yahay haddana ku leeyihiin aniga dalka iyo way marka horta waan ku amaanayaa shacabka waa dad wadaniina waana mid anaga naga maqan walaalkeen hadda uu sheegayo waa runtiis qaladka anaga iska leh because anagu waxaan jecel lahay haddaan Soomaali nahay anagu kaayaga dumiyaha ah kaayaga qarbudaha ah kaayaga gataha ah kaayaga dilaalka iyo dabadhilifka ah baanu taageeraa
laakiin iyagoo arka koodi dilaalka ahaa iyo dabadhilifka ahaa bay waxay dhahayaan intaan dabadhilifkaan waxa uu rabo oo ah dalka dhan inuu tirtirmo intaan raaci lahaa anigu inaan gaajoodo ayaa iiga sharaf badan aad baan horta arrintaa usoo dhaweynaya waana arrinta wadaninimada iyo aqoontu ay keento qofku intaa hadduu iyo islaamnimadu saddexdaaba qofka hadday u dhan yihiin midaasaa laga helaa horta taa shacabka reer Jabuuti waan ku ammaanayaa وانا مدة أن أقول على الريبوتي أنك أبان على لا أنا أسي أودان له وحصاها ري مدحوينه ولكن هذه وحير على الرهلان كان يحقلوا فلا وحن كعسلنا هذاك هذلي dad badan baa soo codsanaya mayga inaa hoos u degtaan fadlan sida dhalinyarada kale ay raayigooda ayagana u degtaan waa maasantiis ku soconadii fuula raali noqo ma dhib maleenaadeen midda madaxweynuhu waxa uu arkay hadal hadda wiilkii u dameeyay aan arkay inuu isaga xukuumadda uu aad u taabacsan yahay ilaa dadku muxaafid iyo mucaarad baa la kala yahay isagu muxaafidka yahay uu ka dhawaajiyay oo ah idinka ayaan waxba ahayn that's reality aad iyo aad baa arrintaa ugu farxay because waa midda annaga waxa weeye annaga waxba ahayn isaguna wuxuu arkay ragga iyaga la adeegsan karo inuu marka adeegsado kii uu dirsan karo dirsado kii uu ku shaqaysan karo ku shaqaysto kii uu gumaysan karo gumaysto waa wax maaragtay raganimadiisa iyo dadnimadiisu keentay waana midda u saamaxday inuu waqti badan innaga dhibkeeni intuu ummadiisa dib u geystay annagana inuu dhibkiisii na soo gaaro waa midda keentay horta annaga taas aad baan u soo dhaweynayaa anigu hadda waxaan leeyahay dhibka ugu weyn annaga ragga iyagaa na gaarsiiyey ee nama gaarsiinin ninka la dhaho muxuu ahaa madaxweynuhu hase ahaatee waa ninka ugu daran oo annaga walaalnimadii iyo maaragtay aan hadda yaa waay qofkan ascada raalina oo nin baa microphone waa ka saaray okay hadda ma ku socon karaa